waxaan is dhihi lahaa waxaa ka mid ah kow waa inuu yahay nin dadkiisa u naxayo oo aan ahayn nin inta badan Soomaalida waxa lagu yaqaanaa inay wadamada deriska u kala cararaan aan wadamada deriska shaqo ku lahayn oo wasaare wadankiisa daacad ah of course waa la heli karaa waxa lagu heli karaa haddii la helo nin u dhigma farmaajo waxyaabaha uu qabtay shacabka Soomaaliyeed u doorteen waa garan karnaa waa la soconaa qofka uu Soomaali la socota laakiinse muhiimadda ugu weyn oo hadda laga sugayo waxaa waaye inuu soo magacaabo prime minister oo leh awood iyo capacity oo 4 sano oo soo socota oo hadda nagu soo wajahan oo asagu dalka mas'uul ka yahay oo maamulo prime minister la shaqeeyo oo capacity loo awood leh ayaa looga fadhiyaa maanta in la soo dhiso marka prime minister asaga waxa lagu soo xulan karaa inuu yahay nin daacad ah waa aragti iyo sheeko ay si siman u qabaan inta badan bulshada Soomaaliyeed meel walba oo ay dunida uga sugan yihiin marka loo yimaado shaqooyinka hor yaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed farmaajo taasi oo ah soo xulidda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shacabka ayaa u arkay in wasiirka koowaad ee golaha fulinta ay muhiim tahay in madaxweynaha uu ku soo xulo hanaankiisa shaqo hufnaantiisa dadnimo aqoontiisa kartidiisa iyo aragti qaadashadiisa caaboon oo dhammaantood lagu laray caqiidadiisa wadannimo of course waa la heli karaa waxa lagu heli karaa haddii la helo nin u dhigma farmaajo waxyaabaha uu qabtay shacabka Soomaaliyeed ku doorteen waa garan karnaa waa la soconaa qofka uu Soomaali maxamed la socota caalamka waa lagu leeyahay inta maanta aan isleeyahay dawladda doortay oo shacab Soomaaliyeed ee maanta u taagan Soomaaliya dawlad loo doortay sida Maxamed Cabdullaahi farmaajo loo doortay ama shacabka ay isku wada raaceen inaysan kala badanaysanayn waa la heli karaa farmaajo nin la mid ah oo u dhigma ra'iisul wasaare yani maanta ninkii hore waxa weeyaan waxaad ka wadaa qofka quality-giisa wadanka badbaadin kara umbaad ka wadaa sidaan hadda aniga aan u fahmay su'aashaada waxaan is dhihi lahaa waxaa ka mid ah kow waa inuu yahay nin dadkiisa u naxayo oo aan ahayn nin inta badan Soomaalida waxa lagu yaqaanaa inay wadamada deriska u kala cararaan aan wadamada deriska shaqo ku lahayn oo wadani ah oo jecel dadkiisa deriska wadamada deriskana aan shaqo ku lahayn horta astaanta koowaad wata astaanta labaad waa inuu ahaadaa nin la shaqayn kara madaxweynaha oo madaxweynaha ay leeyihiin wada shaqayn dhow waa inuu ahaadaa laakiinse muhiimadda ugu weyn oo hadda laga sugayo waxaa waaye inuu soo magacaabo prime minister oo leh awood iyo capacity oo 4 sano oo soo socota oo hadda nagu soo wajahan oo asagu dalka mas'uul ka yahay oo maamulo prime minister la shaqeeyo oo capacity loo awood leh ayaa looga fadhiyaa maanta in la soo dhiso marka prime minister asaga waxa lagu soo xulan karaa inuu yahay nin daacad ah oo nin wadani ah sida asagoo kale shacabka ay ugu sacabatumeen oo loo soo dhaweeyay caalamka Soomaali meel ay joogto dhan dal iyo dibad prime minister loo soo dhaweeyay inuu soo magacaabo asagana oo nin aragti dheer leh oo wadani ah oo daacad ah oo ka maran yahay arrimihii hore oo dawladii hore dhan ay ku soo fashilmeen oo musuqmaasuq iyo waxaas aragti iyo walaaltinimo iyo qabiil arrimo aan lagu soo xulin balse lagu soo xulay aragtidiisa iyo fikirkiisa dheer iyo intii howlahaas ku soo jiray inuu soo magacaabo nin awood leh oo dadka shacabka u baahan yihiin ka saari kara maanta ummadda meesha ay joogto ayaa looga baahan markii inuu soo magacaabo madaxweynaheena ninka asagana aan lagu soo doorin waxyaabo kale bal lagu soo doortay Soomaalinimo wadaninimo shacabka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa hoga tusaaleyn u ah bulsho weynta Soomaaliyeed oo hadda u hamuun qaba qarannimo maadaama ay muddo fog la daalaa-dhacayeen dhibaatooyinkii ay ka dhaxleen dawlad la'aanta Soomaaliya oo haysatay muddo ku siman rubac qarni qaar ka mid ah dadkii aan la kulannay ayaa qabay in madaxweynaha uu ka eego ra'iisul wasaaraha uu soo xuli doono awoodda uu u lahaan karo inuu dib u soo dhiso ciidamadii qaranka Soomaaliya taa beddelkeedana uu ka feejignaado inuu la raadiyo beel iyo nintooxsi aragti dhawaanshiyaha iyo go'aanka ay ka midaysan yihiin ra'iisul wasaaraha imaan doona waxa ay ku dareen astaanta ay labada mas'uul ku wada shaqayn karaan dooran kara wadanka ugu weyn kara horta ciidankiisa ma dhisan yahay ciidanka Soomaaliya hadduu dhisan yahay wax waa la qaban karaa yaana dhisi kara ra'iisul wasaarihiisa ra'iisul wasaaraha waxaan dhihi lahaa uu soo dooranaya ha ahaado farmaajo nin adiga kula mid ah oo yani wadankiisa iyo dadkiisa iyo shacabkiisa iyo diintiisa iyo ciidankiisa wax uu qaban kara maanta Soomaaliya way cageedu isku taagtay shanta Soomaaliyeed way israacday waxaan leeyahay Soomaaliya
guuleysta ra-iisul wasaare waa la soo dooranaya insha allah maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leeyahay yacni soomaaliya kama dhammaan karta eed san oo soomaaliya kama inuu ahaadaa nin maanaji karayn kara oo ciidanka siin kara dhaqaalaha oo ciidanka xoogga dhisi kara waa inuu ahaadaa nin aan waddanka maaragtay aan kala raacaynin maamul goboleedyada hadba meesha uu asaga la dhihi karo uu ka soo jeedaa aanan shaqo ku lahayn u simanin maamul goboleedyada si fiican dhexdhexaad ugu waa inuu ahaadaa raggaasna way ka buuxaan qaar baarlamaankay ku jiraan qaar waxay ku jiraan musharaxiintii hadda u taagnaa xilka marka waxaan dhihi lahaa aniga kuwaalitigaas farada badan iyo astaamahaas uu leeyahay ra'iisul wasaaraha waxaa dhanka kale xusid mudan in bulshada Soomaaliyeed ay si siman uga muraal dilaaceen murannadii soo kala dhexgeli jiray madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii la soo shaqeeyay halka ay mar kale bulshadani isdul taageen in laga gaashaanto arrimahaasi si aanay u fadhiidin dawladda ay iminka shacabku ay hamuunta daran u qabaan waa inuu ahaadaa nin la shaqayn kara madaxweynaha oo madaxweynaha ay leeyihiin wada shaqayn dhow waa inuu ahaadaa sidii hore aan u baranay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kala cararaay ama mooshinka baarlamaanka dhexdiisa qabsanaya waa inaysan imaan oo 4 sano oo soo socota ay noqoto 4 sano oo kaliina waddankana la badbaadiyo waddankana loo horseedo one vote one man wax la dhihi jiray iyo waxa uu dalka u qaban karo oonan ahaan nin oo markii bariyo 10 bari lala shaqeeyo ama 2 bilood kadib baarlamaanka loo horkeeni doono mooshin waxaa ka codsanaya madaxweynaha inuu 4 sano oo xilka u hayo prime minister la dhaqmi karo oo asaga amarada uu siiyey iyo asagana isfahmi karaan dadka shacabkana kalsooni ka haysta inuu soo magacaabo oo waddanka hore u sii dhaqaajiyo